teleefankaaga si update loogu sameeyo. Sida update loogu sameeyo waxaa u baahan tahay inaad update hesho because maxaa yeelay shirkadaha oo teleefanaadka soo saara ama kombiyuutarada ama softwarada operating systemka ama iOS-ka waxay sameeyaan macluumaadka ugu dambeeyay ee soo baxa ayay soo saaraan. Kadib adiga update ayaa sameynaysaa, waxaad ku xirmaysaa shirkadda, kadib waxaad sameynaysaa download si teleefankaaga uu u helo macluumaadka u dambeeyay. Marka qaybta settings ayaa tegaysaa, kadib journal ayaa tegaysaa, qaybta journal ku qoranta ayaa klik siinaysaa, kadib waxaad tegaysaa software update meesha ku qoran tahay ayaad klik siinaysaa. leeyahay waa uu raadinayaa marka waa kana marka iOS 1.4 ayuu marayaa. Marka waa in aad soo dejisataa si aad u hesho macluumaadka u dambeeyay oo teleefankaaga u baahnaa iyo waxyaabihii cusbaa ee lagu soo daray. Marka qaybtan oo download and install hadda ima muuqato hadhow adiga intuu kaaga muuqanaya. Qaybtan download iOS update ayaad on ka dhigaysaa, install iOS update on ayaad ka dhigaysaa. Marka qaar off ayuu ka yahay, marka waa inaad software update-ka aad tagtaa, kadib qaybtan oo customize automatic update-ka ayaad tegaysaa, on ayaad ka dhigaysaa. Waa kan off san camal ayuu ka yahay, on inaad ka dhigto ayaa fiican si automatically uu teleefankaaga u soo dejisto update-ki u dambeeyay. Marka on ayaad ka dhigaysaa, markaad on ka dhigto wuxuu ku leeyahay download iOS update on way, install iOS update ku shub teleefankeyga update-ki u dambeeyay. Marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa update-ka. Intaas ayaa shirkeyga kusoo koobaya.